intaas ka bacdi ninba badin maayo ana hadalkaygu wuxuu ahay inaan ku hadlo afka guddiga qabanqaabada laakiin hal maahan raacinaya ninba beri wuxuu dhalay wiilal markaasuu sakaraaday wiilashiisii u yeeray wuxuu yiri wadin la dardaarmaya ii imaada markay yimaadeen buu yiri kulligii waa idin duceeyay ilaa hebel maahane maxaa dhacay kaas waa inkaar uu yiri waxa midba ragga kamida wuxuu yiri aabana wada inkaar maxaa dhacay wuxuu mid inkaar hadaad nooga tagto anoo dhanba inkaar loo yiri ibra laga dhigaya marka noo wada duceey ama na wada inkaar taa macnaheedu waxaan ula jeedaa madaxweyne kastoo yimaada xaflada loo dhigaa ayaama hore la hadalaya ka bacdina muxuu waa inkaarna balay ku dhacdigayaan naga wada inkaar ku dhacdi inkaarta annagu aan inkaarayna annaga wax noo dhibtay ilaahay waxaan ka hilmaam hadal kuma jira la yiraahdaa waxa doorashada soo waday oo hawsha markin oo sanadii ugu dambeeyay qabanayay maxamed xuseen rooble oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ah maxamed xuseen rooble kaliya ma ahan ra'iisul wasaare waa Soomaali Swedish magaalada Sweden oo Stockholm uu ka tagay waxa way dhalashada ah haysana camal la haystaa dhaqanka aan markin oo meeshan ciyaalkeena ku barbaarin oo qayb ka yahay macnaheedu waxa way iyadoo oo Soomaaliya markin oo Soomaali uu yahay ra'iisul wasaare Soomaaliya hadana khaasatan anaga reer Sweden waa qofkii markaas nagu matalayay ee joogay Soomaalidu waxa hadalkii aad sheegtay ahaad Soomaali heshiisa dariska heshiis la hadalkaasi Soomaalida oo dhan ka sugaysa marka kaasana lagu doortay waana nasiib inaad mar labaad ku soo noqoto madaxweynaha Soomaaliya marka inaguna Soomaalida dib mid baana meesha taalo oo inta badan marka ay wax la doorto waxna ay cusub yihiin niyad wanaaga iyo filashadu hadii ay fiicnaato qulubta bilaadmiga Ilaah baa arkaya cid lagu jiro oo wax laga aqbalayna Ilaah baa og in wixii cusub wanaag laga fisho lana soo dhaweeyo baa muhiima أنا حسن شيخ أنا لحظة ليا حسنو أفر مادان كعلى لحظة ليا أفرت مادكو قبيلك وعينا تورتا والصومالي مديسا وقبيلك كلا بعضنا وعيدا مدحوق الدلك كسدحات نك قبل كبراندر أولي بيسوينا الحساب تنطع نقول بابا محو هاي ودنكو مقدش هذا توست صومالي وتوسيسا waxaa meeshan iskugu imaan munaasabadan ayaamahan dhan aan qaban qaabinayna anigoo kamid ah guddiga magaceyguna yahay Raan Tishbaari way yaqaaniin badana Saacidi Shire madaxweynaha ina u hambalyeeyno madaxweynihii horena aan sii sagootino especially aniga kooxdii waxaan kamid ah oo madaxweynaha Xasan Sheekh aad iyo aad aan ugu faraxsanahay idinkana aad iyo aad u mahadsantiin maadaama aan nagala horta sheekha halkan yimid war waa noo dhameeyay آيات القرآن ماش الوقري وحيل هذا هلا ميدوبو حرق إليها هلا قبصدو هلا ولا لو ورك جينا ولكن حسن شيخ محمود مدحوينها محوا قرن كصوماليات إن إلهي كتوسيو ودادا توسن صومالنا أن محوا إشاك أن ترمينال كأفر سنة وحوم معها سيدا أسقى أو شيء مركي هرنا أي حاجة لقبل القيء ده قبيان لما يستر أبولها marka jaanis kugu yimid qabyada lagu dhameestiray adinkana marka walaaliniin Xasan Sheekh wuxuu ahaa bahdii waxbarashada wadanka ayadoo aan waxbarasho ka jirin markuu burburay dadkii aas-aasay ayuu ahaa waxbarashada oo jaamacadaha ugu maanta ugu tayada fiican ardadii ka soo baxdana maanta ay xafiisyada dawladda maamulayaan intaas wadanka kama uusan tagin asagoo maaragtay dadaalyeeyo laguna sagootiyo madaxweynihii hore laguna ducaynayo wixii uu qabtay in Ilaahay jisaayo ka siiyo ka dambe cusub ee xilka ugu dambeeyay ee waa qor isu dhiibay waa maalinba nin baa imanayee ugu dambeeyay xilkana in Ilaahay xilkiisa ku asturo oo uu fududeeyo oo dad wanaagsan oo la taliyeeyaala oo xilka inta ka dhiman uu dhiibo madaxweynaha cusub ee magaranaysa federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo labada gudoomiye aqalka sare iyo aqalka hoose رئيس وزراء حلقارسينتا مدن روبلة وحن كسر دوينيا فرحات إيور رين بان كسر دوينيا مدحوينها حسن الشيخ أيان ودعيننا هذا البدن حال ومبوش وحتر وانا صومري مران صو أرقني أفر سنون مدحوينا نوعها وحي او سمايين وان أقنها wixii ka halaabay
waxaan rajaynaynaa inuu noo